daawadayaal ku soo dhawaada taxanaheennii ururka sirta ah ee Black Marrow qaybtana waa qaybtii saddexaad 21 July 2007 ayaan ka soo degay madaarka Hargeysa cabsi ayaa dabooshay qalbigayga waxaase ay hore igu sheegeen wadanku in aanu lahayn sirdoon difaaca qolada qure ee la igu dardaaray in aan ka feejignaado waa qolo wadanka ilaalisa oo suuqa iska joogta dadkuna aanay aqoon awoodooda iyo wajiyadoodaba judhiiba laba guri ayaan ka kareystay masallaha iyo jigjiga yar waa labada xaafadood ee aad hawlahaaga si fiican ugu wadan karto waxaan ku tala jiraa in aan hantiyo dhalinyar badan oo gabdho iyo wiilalba leh waxaan ku kasbanayaa lacag iyo indhasarcaad mustaqbal qurux badan ayaan u sawirayaa labadaas guri ayaan kulan ugu qabtaa hawlihii oo meel fiican ii maraya ayuu ila soo hadlay Paul waxaa la iigu amray in aan tago gobolka Sanaag oo aan fuulo buurta Cirshiida labadii habeenimo ayaan fuulay subaxii ayaa fariin ii soo direen oo ay yiraahdeen xalay waxaad fuushay buurta sida sirta wadankaas waxaase la ifaray in aan degdeg uga soo baxo dalka oo nolosheedu khatar ku jirto dhaadhaca daalo markaan marayo ayaa nin cawlan nagu joojiyay buurta hoosteeda waxa uu igu yiri kuwa ku soo diray Sanaag ayaa awoodoodu ku idlaan ama ku dhamaan doontaa haddaad mar dambe timaadaan ama aad timaadaanna waad eedi doontaa haddana fariinta gaarsii walaalahaaga madow cabsi ayaa igu dhacday waanan baqayay ilaa aan ka degay madaarka Heathrow ee magaalada London Paul Macmillan ayaan ku booqday xarunta ururka si diiran ayaa uu qaabilay waxa uu sheegay in aan gaadhay meel ay iyagu ka baqaan waxa uu ku daray in ay Sanaag qorshe ka leeyihiin hadda waxaan ku farayaa bog kale oo sir ah ayaa uu igu yiri Paul waxa uu yiri intii aan ku mashquulsanayn dagaalkii Ciraaq halkan waxa laga taagay calan tawxiid leh waanu garan weynay halka ay naga soo hoos martay 1998 ayaanu ogaanay in awood ka soo baxayso halkaas arrintii ayaa ay ka wada hadleen Mareykanka Ingiriiska iyo Israa'iil waxay yiraahdeen hadda aan la dagaalanno Mareykankuna waxa uu yiri aan eegno sida ay u soo baxayso hadda waanu garan la'anahay si aan u yeelno waxa uu igu daray in ay ciidamo geyn doonaan badda cas iyaga oo abuuraya burcadbadeed ay ka dhigtaan foodsaar iyo sabab ay ciidamadoodu ku keenaan badda cas waxaan arkayaa qorshihii uu fulaya sidii Paul Macmillan igu sii sheegay taas waxa ka daran tamaanta socota waxa uu si cad igu sheegay 2016 in ay Soomaaliland ka soo weerarayaan dhinaca bari waxa ay luraya in aan ogaado sababta uu u rabo dagaalka bari anoo aad moodo in jirku ii damqanayo dadkayga ayaan la soo booday waa kan dhacaya ee maxay ilaa xadka muhiim idinku noqotay inaad weerarkan qaadaan Paul isaga oo aan ii jawaabin ayuu eegay ergey kale waxa uu igu yiri walaal beeg ayaa ku furi doona bogaas ninka beeg la yiraahdo ayaa hadalkii qaatay waxa uu yiri waxaan ka fikiraynaa in aanu isku beegno qaska Sanaag iyo qabsashada Qudus waxaan weydiiyay waa maxay xiriirka ka dhaxeeya Sanaag iyo Qudus waxa uu sheegay markii uu horeysay dunida in ay ku guuleysteen faafinta jahliga iyo qarinta cilmiga dhabta ah qaar badan PhD iyo master ayaan dhabarka kaga qornay haddana cilmiga runta ah waanu ka qadinay way yirihiin cidda taqaan cilmiga sida dhacdooyinka dhulka isku saameeyaan iyo muhiimadda dhuleed ee ka dhaxeeya Sanaag iyo Qudus qolada muslimka waxa loo soo sheegay ama loo sii sheegay in marka ay camiranto Qudus in Yatrib ama Madiina ay xirmayso sirtan waxa haya in yar oo kamid ah dadka awoodda laga ilaaliyo Paul Macmillan ayaa ku soo noqday isaga oo wardoonkayga ka jecel in aan amaradiisa qaato hadalka waxa uu igu yiri dhawaan ayaa dalkii ku noqonaysa waxaanu ku boqori doonaa mataan degdeg ayaanu rabnaa in aan beerno midho aynu mustaqbalka dhow goosanno si ay u sumaysaan quluubta maran waa in ay adeegsataan qalabka aan ku siiyay waxa uu igu yiri marka doonayso in aad biiso dalagga beeraha shinida ayaa la bedelaa marka aad doonayso in aad xumayso fikirka wanaagsan waxa dadku akhrisanaya ayaa la abuuraa xikmaawi Shiiniis ah ayaa laga hayay haddii qorshahaagu yahay 1 sano bariis beero haddii uu yahay 10 sano dhir beero haddii uu yahay 100 sano caruur waxbar walaal Paul oo hadalkiisii sii wata ayaa yiri inaga qorshahayna eriyaya waa ka duwan yahay taa waxaanu ka cararaynaa cadceed galbeed ka soo baxaysa oo aan la garanayn goor ay dilaaci doonto waxa gabi ahaan bay isbedelaya 2012 qorshe 300 sano noo soo shaqeeyay
way adag tahay in aanu maamulno xataa doqomihii. walaal Paul waxa uu intaas raaciyay wax walba waxay u shaqeynayaan si lidi nagu ah, mana garanayo sida ay wax u dhacayaan. waxaan mar labaad dalka imi ama dalka ka soo degay anigu oo sita buug badan oo falsafad ah oo ay qoreen ragga ay ka mid yihiin Aristotle, Plato, Socrates, Hegel, Locke, Tolstoy iyo qaar kale oo badan. kulamadii oo halkoodii ka sii socda ayaan buugta u qaybiyay dhalinyaro dhowr ah. waxaan ku yiraahdaa ereyo beerlaxawsi ah oo aan qalbigooda ku xadayo. waxaan ugu yeedhaa waxa tahay balaatii Soomaalida, waxaan si dareemayaa inay qabgelisay. waxaan si ogahay kuwa gashada kabaha falsafada iyagoon aqoon fiican lahayn in ay galaan mugdi. markii ugu horeysay qolo aan dalka ka bixin ayaa baraha bulshada ku soo qortay ereyo ceebeen ku ah asalka diinta Islaamka, waxaanay shaki geliyeen iimaankooda. arintaas ururku si weyn ayuu igu soo hambaliyeeyay. Paul Macmillan ayaa ii soo qoray fariin gaaban oo aan fahmi waayay una qoran sidan: waxaa la gaadhay waqtigii uu soo bixi lahaa boqorkii qarsoonaa. fariintan markaan akhriyay ayay anoo arkaya ismasaxday iyadoo gubanaysa. argagax iyo cabsi ayaan dareemay, wadnahayguna wuu gariiray. waxaan weydiiyay Paul waxa fariintii gubay. waxa uu sheegay in jinka heshiis ay kula jiraan oo ay arrimo badan ka wada shaqeeyaan. qabiilooyin kala duwan ayay leeyihiin. hadda reerka noo qaabilsan internetka waxa la yiraahdaa Silla. halka marka uu marayo ayuu ismaray oo ka cadhooday Paul inuu sirtaas sii dhex galo. waxaan la xiriiray koonfurta Soomaaliya anigoo doonaya in mashruucu ku faafo dhulka Soomaalidu degto. Muqdisho hawsheeda wiil yar ayaan u diray. sidaas ayaan Paul u sheegay. waxa uu igu yiri Muqdisho waxaan u naqaanaa Vatican City, markaa wakiilo badan ayaa noo jooga. halka ayaan kaga hadhay oo waxaan ogaaday in aan keli ku ahayn dagaalka socda ama dagaalka dahsoon.